qofku markuu khudbada akhrinayo ama khadiibka uu yahay waxaa shardi ah inuu istaag ku akhriyaa shardi ah, fadhi kuma khudbayn karo. waxaa la yidhaha labadan khudbo waxay naa'ib ka yihiin labadii ragcadood ee duhurka, ilan jumcada laba ragcadood baa la tukaday. labadii kale ee ragcadood khudbooyinkan booskooda ay ku jiraan. marka istaag waa in lagu khudbo akhriyaa. qofka khudbada akhrinaya waa inuu yahay qof dahaaro qaba oo xadathul asqar iyo xadathul akbarba daahir ka ah. maryahiisa iyo badankiisa iyo makaanka uu taagan yahayna waa inay daahir yihiin oo nijaaso daahir ka yihiin. waa inuu yahay qof cawradiisu ay asturan tahay. qof aan cawradiisu asturnayn oo de ninkii cawradiisa baa benisirtu rubba garanaysaa, haddaysan asturnayn ama meel kamid ay faydan tahay khudbo ka ansixi mayso. waxaa waajiba labada khudbo dhexdooda in la fadhiisto fadhi oo dumaaniinada salaada wax yar ka sareeya. qadru suurat alikhlaas baa la yidhahdaa. qadar laga akhriyo qof muctadila suuratul ikhlaas uu ka akhriyo qadarkaasuu fadhinayaa labada khudbo dhexdooda. waxaa kaloo ka mid a shuruudaha khudbada mawaalaad, in la xiriiriyo labadii khudbo oo markaad khudbada koobaad dhammaysid wax yarkaa fadhigaa mooyaan haddana khudbada labaad waa inay guda gashaa. saasaa lagaa rabaa. aadaab iyo wadaa'if fara badan bay leedahay. waxaa ka mid ah sunnooyinkeeda iyo adaabteeda maalinkaas dhar cadcad in la xidhaa sunno ah, in la qabaysto laysnadiifiyaa sunno ah oo catar iyo wax udgoon la marsado. waxaa kaloo sunno ah in lasoo kallaho oo masaajidka aroornimo hore lasoo galo, 1 saac 2 saac 3 saac lasoo galo si aad dadka ajirka badan helaya uga mid noqotid. waxaa kaloo ka mid a maalinkaas sunnooyinka iyo adaabta ay leedahay qiraa'atu suurati lkahfi in la akhriyo. suuratulkahfi in la akhriyo maalinkaas waa sunno. salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam in la badiyo iyo aadaab fara badan bay leedahay. wuxuu ku yihi marka waljumucatu jumcadii fardu cayni weeye. horta jumcadu waa fardu cayn. yani fardu cayn waxaa looga jeedaa qof kaste oo muslim ah, mukallaf ah, baaliq ah, caaqil ah, waajib bay ku tahay. qof kasta oo mukallaf oo baaliq caaqila ah, muslim ah, dakar ah, xur ah, xaadir ah, waajib bay jumcadii ku tahay. waayahay marka jumucada magacaas luqa ahaan maalinkaa loo yaqaanaa. maalinka caadiga ah yaa jumco la yidhaahdaa xagga luqa ahaan. xagga sharci ahaantana waa ismun lisalaati alatii tuqaamu fi hada alyowm. waa magac ay leedahay salaada la tukanahayo maalinka jumcada ah. salaadaas jumcada ah marka waxay culimmadu yidhaahdeen waa afdalu salawaati almafruuda. salaadihii la waajibiyey salaada ugu fadliga badan waay. wa jamaacatuhaa afdalu ljamaacaat. jumcada jamaacadeedana jamaacaadka midda ugu fadli badan waay. maxaa yeelay jumcada jamaacadeedu waa waajib, laakiin jamaacaadka kale waa sunno. jumcadu waxay ka mid tahay min khusuusiyaati haadihi lumma. ummaddan maxamediyada waxyaabaha ilaahay uu ku sharfay oo ku khaas yeelay ayay ka mid tahay. xadiid nabigeena laga wariyey calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu leeyahay asalawaatu alkhams waljumcatu ila aljumca wa ramadaanu ilaa ramadaan mukafiraatun limaa baynahunna ida ijtunibat ilkabaa'ir. waa xadiid saxiix. wuxuu leeyahy nebigu salaadaha shanta ah iyo jumco ilaa jumcada kale laga gaaro, ramadaan ilaa ramadaankiisa kale laga gaaro, waa mukafiraatun limaa baynahunna. waxa u dhaxeeya ayay dhaafaan. mathalan salaada duhurka haddaad tukatid waxay dhaafaysaa wixii u dhexeeyey casarka iyo duhurka wixii u dhexeeyey. casar haddaad tukatid wixii maqrib iyo casar u dhexeeyey. maqrib haddaad tukatid wixii maqrib iyo cisho u dhexeeyey. cisho haddaad tukatid wixii cishii subax u dhexeeyey. subax haddaad tukatid wixii subaxii duhur u dhexeeyey. mukafiraatun limaa baynahunna. jumcada markaad toddobaadkan tukatid maalinka jumcada ah ilaa jumcada kale inta laga gaarahayo waxa u dhexeeya way dhaafaysaa. ramadaanka markaad bishaan soontid ilaa ramadaanka kale sanadka kale soo socda inta u dhaxaysa waa lagu dhaafaa. goorma? waa ida ijtunibat ilkabaa'ir. haddii laga dheeraado dunuubta kabaa'irta. haddii laga dheeraado kabaa'irta. wuxuu yidhi marka jumcada waxaa la waajibiyey oo lagu farad yeelay horta magaalada maka ayaa lagu waajibiyey. laylatul israa walmicraaj baana la waajibiyey.
qofkii ugu horeeyey oo jumcada tukada wuxuu ahaa baa la yidhi ascad ibnu zuraara radia allahu tacaala canhu maca muscab ibnu cumayr. magaalada madiinatulmunawara ayay ku tukadeen. nebiga calayhi salaatu wasalaam markaas ma tukanin baa li maka kuma tukanin, waa licadami tamakunihi minhaa, ma uusan makansanin. ilan maka nebiga waa tii aada loogu dhibahaya, markii dambana la amray inuu kasoo hijroodo oo magaalada madiine aada looga jeclaa uu yimaado. marka ninkaasa ugu horeeyaa la yidhi dadkii tukaday jumcada. waljumcatu jumcadii fardu caynin waay. fardu cayn waxaa looga jeedaa wixii sharcigu dalbahaya in la sameeyo qof kastoo mukalafan uu ka dalbahayo. hoos buu kaaga qorhayaa waa maa dalaba shaaricu ficluhu min kulli fardin min afraadi lmukalafiina bih. qof kaste oo mukalafa oo mukalafiinta afraadooda ka mid ah ayaa sharcigu wuxuu ka dalbahayaa inuu la yimaado. fardu caynkaasaa la yidhahdaa. waxaa kasoo horjeeda fardulkifaaya. fardulkifaayuhu waa waxa laga dalbahayo dadka caam ahaan looga dalbahayo, bulshada guud baa laga dalbayaa. waa arrimaha caamkaa waxay la yidhahda waay, ama arrimaha bulshada oo kale guud ahaan baa dadka looga dalbayaa. wax hadda cid oo gooni ay u saaran tahay ma jirto. laakiin haddii dadka qayb ka mida haddii dadka cid u qunta haddii la waayo arrintaas